فرحان آدن هيبي وزيرك وزارة دولست يهود سومالان وورفديك كلها اللي حرونت وزارة داسي أياس رسمية شاعة وقاضي الدبلو دقاي باسمه مدار كبرعو وزارة وقرشيسنا الدوال دسو وحانو وزيركو أردتاسي وسببيي أبارت حوكن كجرتا قار كميدا قبلة باريغا سومالان waxaa ku talagalka iyagu ahaa inaanu bilowno qorshaha dhismaha madaarkii burcoon hore u sheegnay si aanay noogu noqon arrin aanu maartay uunintanu ka sheegnay TV-yada iyo idaacadaha aanu ka gaabinay qorshaha abaarta awgeed waxaanu dib ugu dhignay bisha March haddii Allah awood loo ogolaado in bilowgiisu noqdo in la bilaabo runwaygii iyo dhismihii madaarka burcoon way hore waxaanu shaacinay inay January noqonayso bartamaheeda ama dhamaadkeeda laakiin duruufaha abaarta awgeed ayayna la noqon weyday inaan maartay hawlgalka imika sameeyno oo baahan tabaabasho fara badan oo tabaabashiisu diyaar noo yahay marka taa waxaan ku wargelinayaa anagoo gudidii horumarinta ee madaarka burco iyo qoladii qandaraaska aanu siinay iyo wasaaradda ahaan bay isleegnay inaanu ku talagalkaygu yahay bisha March in la biidnillaahi tacaala wasiirka duulista iyo hawada Somaliland sidoo kale waxa uu faahfaahin ka bixiyay qalab casri ah oo uu ku soo kordhiyay madaarka Hargeysa inaanu keeno system aanu kula socono ama air radar waxa luqadda lagu yiraahdo radarka lagu socdo hawada sare ee diyaaradaha dhammaan soo galay xuduudkeena marka laga reebo kuwa militariga wali hawsha waa ku jiraa kuwa militariga awoodeeda iyo farsamadeedii waa ku jiraa laakiin imika waxaan idinku bishaareynaya oo ummadda Soomaaliya ugu bishaareynayno inaanu awood wasaaraddu u leedahay inay la socoto dhammaan diyaaradaha soo galaya hawadeena ee rakaabka dhinac kasta ka soo duulaan jiha kasta ka yimaadaan taasna waxaanu uga jeednaa oo tadawurka ay wasaaraddu sameynayso biidnillaahi tacaala ugu dambeyntii wasiirka oo wax laga weydiiyay saldhigga military ee dawladda Imaaraadka Carabtu doonaysa inay ka samaysato magaalada Berbera ayaa si qoto dheer arrintaasi uga waramay ta saldhigga militariga runtii arrintaasi anigu maalintii horan ka hadlay ku noqon maayo wuxuu faa'iido leeyahay wuxuu manaafacaad leeyahay dalkan uu leeyahay qodob ma Soomaaliland soo jeedinaya haddaynu doonayno inaynu laba shay bay isu kala dhinac yaala haddaynu doonayno inaynu cabsi awgeed aynu adduunka iska soo oodno oo aynu albaabada soo xidhano waxa weeye waa dariiq inoo furan haddaynu doonayno inaynu adduunka isu bandhigno inaynu dad jira nahay oo aynu faqriga iyo shaqo la'aanta iyo liidashada aynu ku jirno ka baxnana de xukuumadda in la garbadubo maahe waa inaynu adduunka la macaamilaa labadaasi waa laba doorasho inaga inoo yaala dawladuna ka saxay qaadanaysa ka saxayna ku socotaana waajibkii loo doortay weeye madaxweynuhu hormoodka uga yahay laakiin cid hadlaysa cid ay dawladdu ama xukuumaddu ay iyadu ama shacbigu doortay inuu shacbigu doortay maaha marka waxaan leeyahay wargolayaal baynu leenahay xukuumadda soo doortay baa jirta oo cod lagu soo doortay xukun military dalka kuma haysato golayaal baa jira xeer dejin oo la xisaabtamaya madaxweynuhu wuxuu ballan qaaday inuu kuwa marinayo war waxaan leeyahay cid hadlaysa ha aaminto cid ay soo dooratay xukuumadda ay soo dooratay golayaal bay soo dooratay way xisaabtamayaan wixii ka soo baxa haddii madaxweynaha lagu ogolaado falillahi alxamd haddii loo ogolaan waayana falillahi alxamd oo xukuumadda kuma cil qabto waxay u aragtaa wax golayaashu arkeen maslaxad kale inay tahay Batri Koosar Maxamuud telefishinka caalamiga Star Hargeysa